الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنا له صومالاي وكاليا دحلك الرسول كان صوبا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan Allah idin dhowro, dhulkeena hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo, amnigiisa iyo amaankiisana Allah sugo. caawa waxa inoo bilaabanayaa barnaamij taxane ah oo aan ugu magac daray dhaxalkii rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal, runtii waxaynu inteena badan ilownay dhaxalkaa qiimiga badan, quruxda badan, qaaliga ah ee aynu ka dhaxalay xabiibkeena suuban. ku salli xabiibkaage sallallahu alayhi wasallam. dhaxalka uu ina leeyahay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waqtiga fitanta, waqtiga balaayada, waqtiga ay idinkugu daran tahay ee ay adduunyadu idinku habsato, ku qabsada goos dambeedka waa badbaadaysaane. caawana xalaqadeena koowaad waa mid ka mida dhaxalka ah, waana alwafaau bilcahd, ballanta oo la oofiyo. ballanta oo la oofiyo, ilaahay ballamaha laga qaadayo, ummadiisa ballamaha laga qaadayo in la oofiyo. aad iyo aad buu ilaahay noogu tirtirsiinayaa. caawa waxa ay doonayso madrasadu inay ku qayliso waa dhaxal ina dhowraya adduun iyo aakhiro. waa mustaqbalkeennii dhammaa, waa nolosheenii adduunyo, waa nolosheenii aakhiro. dhayal ma aha, ha fududaysanina, arrinkuu adag yahay. dhalinyaroy dhigaha ii fura. ballanta oo la qaado oo aanan la fulinin caaday noo noqotay walaalayaal. ma kula tahay addoonkii allow ballanta aad ka qaadid addoommada ilaahay ama alleba aad ka qaadid ee aad oofinaysid in aad ku helaysid shahaadada ugu qiimiga badan caalamkan uunkan dushiisa, oo weliba insaan aanu bixinaynin, oo uu bixinayo Allah subxaanah. xaggee buu ka soo bixinayaa? waa min fawqi 7 samaawaat, 7 sama ka kore ayaa shahaado lagaa siinayaa. allahu akbar. shahaadadaasaa wax loo tartamo ah, shahaadadaasaa wax laysu dhabarjebiye ah, oo weliba cidiyaha iyo faraha in lagu dagaalamo ah sidii loo heli lahaa. walaalayaal, alle subxaanah waa ka uu dhahayo waawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum. oofiya ballamaha alle, oofiya marka aad gashaan ballamaha ah. si toosa ilaahay oga qaad oo wax isku waajib yeel, ama insaanka ka qaad. oofiya ballamaha aad qaadaan. insaanku labuu ileen u kala baxayaa, kuwa oofiya iyo kuwa aanan oofinin, kuwa baasa oo guulaysta iyo kuwa ku dhaca imtixaankee. ilaahay wuxuu doonayaa in uu bixiyo shahaado magaceeda la yiraahdo shahaadatu taqdiir, oo lagu magacaabo alwafaau bilcahd. waa shahaado wallahi shahaadooyinka dhan ugu sareysa. shahaadooyinkan waraaqadahan aanu maaragtay ku daalay, waqti badan ku bixinay, xoolaheena iyo xoogeeniyo dhan inaga dhameeyey si aanu ugu goosano, ugu raadsano, ugu urursano xaaba adduunyo.
laakiin caawa ilaahay wuxuu rabaa in uu idin siiyo shahaado la yiraahdo alwafaau bilcahd, shahaadatu taqdiir, shahaado runtii ay qaateen ya ambiyadii ilaahay, bal rusushii ilaahay, bal kuwii khaaska ahaa ee ululcasmiga ahaa ay qaateen. shahaadada aan doonaya maanta inaad qaadatid waa shahaado ay rusushii ululcasmiga ahaa ya ay qaateen oo uu guddoonsiiyey alle subxaanahu wa tacaala. so walaale addoonkii allow, addoontii allay ma doonaysid ilaahay inuu ku guddoonsiiyo shahaado taqdiir alwafaau bilcahd. shahaadada waxaa qaata un mu'minka dhabta ah. allah, maxaa yeelay waaba sifo laazimo ah oo laazimaysa ku dhegan aanan ka faaruqaynin qofka mu'minka ah. mu'minna laguma noqdo garabeeshin, laguma noqdo qabiil, laguma noqdo lacag, laguma noqdo in adeersi, laguma noqdo laguma noqdo intaasoo dhan. mu'minka dhabta ah dadaal baa lagu noqdaa, camal saalix ah, hogaanka inaad dhiibatid, niyadaada hagaajisid, adiga oo dhan ilaahay inaad isu dhiibtid, awaamirtiisii qaadatid, nawaahidiisiina aad ka hadhid. ya tawfiiq ilaahay baa lagu noqdaa. marka eeg ilaahay isagoo ammaanaya mu'miniinta oo sheegaya in ay mudan yihiin shahaadada in la siiyo, waa ka uu dhahayo waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu. mu'miniinta dhabta ah ya ee guulaystay, imtixaankan adduunye ku baasay, waa kuwa oofiya ballamahooda, kuwa ay alla ka qaadayaan iyo kuwa dhexdooda ay iska qaadayaan, waa kuwa oofiya. waalmuufuuna waa kuwa oofiya oo ka soo baxa bicahdihim ballamahooda idaa caahaduu marka ay qaadaan. qofka insaanka markuu ballanta qaado maxaa loo baahan yahay? waa inuu ka soo baxaa, waa inuu gudaa. maxaa yeelay imtixaan waa lagu eegaya, ilaahay baa ku eegaya, imtixaan baad ku jirtaa. waad aragta marka imtixaanka inaad qishi karin, inaad meelaha eega ha qishin. qishku waa inaad kasoo bixi weydid oo aad burisid, aad guub yeeshid ballanta. waalmuufuuna bicahdihim idaa caahadu. ugu dambayntii sifooyin badan oo uu ku sheegaya gadaal eeg, waa ka alle uu dhahay subxaanahu wa tacaala ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun. allah, kuwa waa kuwa runta sheegay, waa kuwa aqwaashooda run ka sheegay, afcaashooda run ka sheegay, qalbigooda iyo iimaankooda run ka sheegay, ballanqaadkoodii run ka sheegay oo oofiyey. kuwa waa kuwa ilaahay ka baqaya. allahu akbar. kuwan waa kuwa ilaahay jecel yahay. maxaa yeelay adduunka eeg waxay ka soo qaateen wixii ugu wanaagsanaa ya ee anfici lahaa aakhiro. ilaahayna uu leeyahay watazawaduu faina khayra zaad attaqwa. war soo sahay qaata. adduunkan 60 sano 70 sano 80 sano aad nooshahay, soo sahay qaata, baadbaadha waxa idin anfacaya, idinka anfacaya xagga. tan ma aha inaad ururisaan, tan ma aha inaad laabti golanka gashataan, tan ma aha inaad maaragtay kulaashaan, rakantaan, maantoo dhan aad dul fadhidaan, tan ma aha inaad dhistaan ya inaad dhistaan xaabadeeda, ma aha. tan sifo xunay ilaahay uu u yeelay, xalaasheeduna waa xisaab, xaaraanteeduna waa cadaab. tan ma aha baadbaadha 60 sana, bal soo urursada wixii xagga. waa xaggee? waa aakhiro iyo jannadii, wixii xagga idinku anfici lahaa. faina khayra zaad la qaato ya sahay la qaatana waxaa u khayr badan attaqwa, cabsida u khayr badan. soo kuwan ya mu'miniinta ah ee ballamaha markay qaadaan oofinaya, ilaahay wuxuu leeyahay waa sidiiqiin. kuwan afcaashoodii aqwaashooda run ay ku sheegeen, iimaankoodii cibaadadooda run bay ku sheegeen, waana kuwa muttaqiinta ah, waana kuwa maaragtay adduunka wixii ugu fiicnaa oo cabsida ahaa soo qaatay. ilaahay baa ku dhahay subxaanah. allahu akbar.
shahaado meesha ugu dambaysaad wadataa marka shahaado qiimi badan baad wadataa waxa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam idaylkeen ay inala doonayso ay u qaylinayso waa maxay in aynu qaadano shahaadada alwafaau bilcahd haddaadan sifooyinkan runta iyo cabsida iyo iimaanka haddaadan wadanin oo aadan ku sifaysneen oo aadan maaragta isku tahirinin oo aadan isku dadin ya haddaadan isku dadin maya shahaadadan ma qaadan kartid naaqis baa tahay man awfaa bicahdihi wattaqaa qofka oofiya ballantiisa oo cabsada alle ka baqa cadaabka ka baqa haddii ballantan uu oofin waayo waxa ku dhacaya ka baqa hadduu hadalka ilaahay diida waxa ku dhacaya baqa afkiisa u baqa indhihiisa u baqa dhagihiisa u baqa qalbigiisa u baqa gacmihiisa u baqa lugihiisa u baqa af iyo adinba u baqa ya fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay wuxuu aad iyo aad u jecel yahay kuwa baqaya ayuu jecel yahay eeg markuu ilaahay ku leeyahay wa awfuu bicahdi illah waa markuu siinaya war ballamaha oofiya ballamahaad alle ka qaadaysaan oofiya man awfaa bicahdihi wattaqa qofka ballamaha oofiya oo cabsada uu leeyahay waalmuufuuna bicahdihim kuwa ballantooda oofinaya markuu alle leeyahay ya waxaan uu ku soo celcelinay alle subxaanah cashan wuu ku jecel yahay allahu akbar ya inaad runlow tahay oo aad ballanta oofinaysid oo aad maaragta imtixaanka ku guulaysanaysid oo aad taqi tahay alle aad ka baqaysid waxaa intaasoo dhan kasii dheer inuu ilaahay ku jecel yahay ilahay baan kugu dhaariyay shahaadooyinkan kale waraaqahan kale ee faraha badan ee aan cimrigeenii ku oofinay cimrigeenii ku dhammaynay xoolaheenii xoogeenii caqligeenii aanu siinay aynan waxba ku bedelaynin waxana aynan ku islaaxinaynin aakhiran ugu shaqaysanaynin bal ujeedadeenu ay tahay inaan xaaba adduunyo ku ururino ilahay baan ku dhaariyey ma isku midba ya bala man awfaa bicahdihi wattaqaa fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin kuwa oofiya ballanta ya ballanta kuwa oofiya oo baqa ilaahay ka baqa cabsidiisa darteedna u oofiye ballanta waxa waaye kuwa ilaahay waa jecel yahay jacaylka ilaahay miciyaar baad mooday soo ma ogid addoonkii alle o addoontii allah waxaynu la'nahay waa jacaylka ilaahay jacaylka ilaahay waa risiid aad intifaacaysid waa risiid aad quudanaysid waa risiid aad biilanaysid waa risiid ku xifdinaya adduunkan aakhirana ku dhowraya oo ku xifdinaya jannadiina ku geynaya waa risiid soo ma ogid qofkuu ilaahay jeclaado wuxuu u noqdaa maxay gacmihii uu wax ku qaban lahaa indhihii uu wax ku arki lahaa dhegihii uu wax ku maqli lahaa ya wuxuu u noqonaa lugihii uu ku socon lahaa markaa kadib wax walbo uu weydiisto wuu siinayaa wax walbo uu ka magan galana uu ka magan gelinaya jacaylka ilaahay miciyaar baad mooda caawa khuluqan wanaagsan dhaxalkan xabiibka ee ay madrasatu muxamed sala allahu calayh wasalam ee inu xusuusinayso idaylkeen uurka aynu gelino aynu bilowno wixii ballame aynu soo qaadnay aynu oofino kuwa ilaahay aynu ka qaadnay iyo kuwa aynu bini aadamka ka qaadno bal inaga keliya maahay aynu gudbino aynu ku tirtirsiino insaanka in uu ku boorino in ay gudbiyaan maxaa wacay khayr laga qadi kara maaha ya oo wuxuu ilaahay kugu jeclaanayo jacaylkiisana adduun iyo aakhiro ku anfacaya alle subxaanahu wa tacaala haddana mar kale eeg alle subxaanahu wa tacaala min fawqi 7 samaawaat 7 same ka kor ayaa wuxuu kuu qirayaa inaad amiin tahay oo aad ilaalisid amaanada jirkaaga amaanada diintaada amaanada cirdigaaga amaanada dadka aad ka qaadid amaanada alle kugu amaanaystay amaanoo dhan wax walbo agtaada amaano ku ah in aad ilaalisid allah qiraya darajo ka weyn miyaa jirta ilahay baan kuu dhaashay
ya oo haddana ballamahana ilaaliya. waa ka uu dhahayo waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun. way ilaaliyaan, way raacaan, way dhowraan, indhahay ku hayaan amaanada. haafiliin ma aha, kama seexdaan amaanada. amaanada iyo ballamaha ay qaadaan way ilaaliyaan, sida arileyga uu u ilaaliyo arigiisa, geeleyda ay geela u ilaaliyaan, lo-leyda ay maaragtay looda u ilaaliyaan, oo ay indhaha ugu hayaan, oo ay cadowgii iyo dugaagii iyo halaqa ay uga ilaaliyaan, ayaa waxa waaye ay u ilaaliyaan amaanada iyo ballamaha ay qaadaan. yaa qiraya, yaa ku qiraya, sifadaa iyo khuluqaa wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala. allahu akbar. marka shahaadadan shahaadat lwafaa, alwafaau bilcahd, yaa qaatay. ilaa waxaynu soo niray xalaqada bilowgeeda, rusushii ilaahay ayaa la siiyey, bal ululcasmigi ayaa la siiyey, shantii ululcasmiga ahaa. allahu akbar. u kaalay abulanbiyaa nabiy llahi ibraahim calayhi salaam, ilaahay baa u qiraya shahaadatu taqdiir inuu wafi yahay, uu oofiyey wax walbaa oo ilaahay uu amray wuu oofiyey. waa ka uu dhahayo waibraahiima aladii wafaa, ibraahimkii u sheeg ummadaada, xusuusi ummadaada, ha ku daydaana ummadaada. nabiyullaahi ibraahim, ibraahimkii ahaa wafiga, oofiyey ballamihii uu qaaday oo dhan wuu oofiyey, bal wuu ka badiyey. wixii aqwaal ahaa iyo wixii afcaal ahaa, wixii oo dhan, kuwo insaan hadduu yahay, kuwo alle hadduu yahay, ibraahim ilaahay wuxuu u qiraya calayhi salaam inuu oofiyey. waibraahiima aladii wafaa. allahu akbar. nabigan marka nabiyullahi ibraahim, rasuulkeena la amraya oo la leeyahay waa inaad raacdaa khuluqa, waa inaad ku raacdaa aabbaha ibraahim, dabeecaddan iyo dhaxalkan wanaagsan, akhlaaqdan wanaagsan ku raac ee wafinimada ah. ثuma awxaynaa ilayk an ittabic millata ibraahiima xaniifa. waxaanu kuu waxyoonay ayaa laleeyahay xabiibkeenna, ku sali xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam. waxaanu kuu waxyoonay raac diintiisa, maxaa yeelay diintiisaa faraysa alwafaau bilcahd. isagaana ku sifoobay runtii oo uu ilaahay uga markhaati kacaya. ku raac baa layidhi. u kaalay wiilkiisii ismaaciil calayhi salaam, waa kala dhahayo wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kana saadiqa alwacd. xus nabiyullaahi ismaaciil, ku xus kitaabkaaga, u sheeg ummadaada, xusuusi ummadaada. inahu kana saadiqa alwacdi, wuxuu ahaa mid ballamaha ka dhabeeya, ballamaha ka run sheega, wuxuu ballan qaado ka run sheega oo fuliya oo ka dhabeeya ayuu ahaa. mid ballamihiisa ku run sheega, haddii af uu ka qaado iyo haddii ficil uu qaado intuba ka dhabeeya oo ku run sheega ayuu ahaa. saadiqa alwacd. waxaa ilaahay qirayaa in uu qaatay nabiyullaahi ismaaciil sida aabihii ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam, shahaadada shahaadatu taqdiir, shahaadada la yidhaahda alwafaau bilcahd. waxaan walaalayaal kusoo gabagabaynayaa qisadan uu xabiibkeenu sala allahu calayhi wasalam uu ku guddoonsiinayo xudayfata bn alyamaan radia allahu canhu wa ardaah, shahaadadan qiimiga badan alwafaau bilcahd. xudayfa sidaynu ogsoonahay wuu ka dambeeyey saxaabada, hijrada wuu ka dambeeyey sanad io bar, 2 sano taqriiban. waa waagii uu socday ololihii dagaalkii beder, waa sanadii 2. markuu ka soo qaxayaa madiinu usoo socdaa, meel dhexaa lagu qabanayaa isagii intii la socotay. waxaa la leeyahay ma waxaad u socotaa madiinaad u socotaa sawmaah, wallahi inaynan ku daynaynin ilaa ballan aad naga qaadid inaadan la soo safanaynin, inaadan garabkiisa noqonaynin, aadan ciidan u noqonaynin, dagaalkana aadan la soo gelaynin, ballan naga qaad markaasaan ku daynaynay, haddii kale makaan kugu celinaynaa.
xudayfa muxuu sameeyaa radia allahu canhu waardaa ballan baa wuxuu ku qaaday in uusan rasuulka sala allahu calayhi wasalam aanu la soo safanaynin dagaalkaa bederna aanu gelaynin waa ka uu dhahayo waxaa uun iga reebay in aan ka qayb galo beder ballantii aan ka qaaday gaalada qureysheed waa ka uu u imanayo rasuulka sal allahu alay wasalam markaasuu leeyahay rasuul allow ballan baan waxaan ka soo qaaday gaaladii qisadii buu uga sheekeynaya muxuu dhahayaa xabiibka sala allahu alayhi wasalam insarifa nafii bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim iska baxuu leeyahay marka iska baxa waanu u oofinaynaa ballanta eeg oofiya ma uusan dhihin sala allahu alayh wasalam wuxuu yiri waanu u oofinaynaa maxaa yeelay ninka mu'minka ah ballanta uu qaado mu'miniinta oo dhan baa qaaday maxaa wacay waa bunyaan waa hal dhismo ah oo is adkaynaya weeyaan mu'miniinta waa ul iyo diirkeed waa far keliya waa qalbi qof keliya mu'miniinta soo ma arkaysid waxaasoo dhan waa dhaxalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aynu ilownay wuxuu yidhi waanu u oofinaynaa iska baxa waanu u oofinaynaa ilaahay baanna kaalmaysanaynaa aan uga kaalmaysanaynaa kuwan dagaalkii beder waa la ogaa hadde waa kii 70 laga dilay 70 la qafaashay guushii faraha badneed iyo khaniimadiina waa tii la helay wuxuu oofinayo waa maxay waa ballan uu ka qaaday gaalo uu ka qaaday halkaasaa wuxuu ku qaadanayaa xudayfa wuxuu ku qaadanayaa shahaadadii alwafaau bilcahd xataa gaal haddaad ballan ka qaadid diinteenu waxay ku faraysaa inaad u oofisid maadaama aad qaaday wlmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu sifadeena noocaa ah in aanu oofino ballanta haddaynu qaadno haddaynu ballan qaadno inaynu oofino haddaba caawa maxaynu ka baranaynaa darsigan dhaxalkan caawa ay madrasadu la qaylinaysay waa maxay waa alwafaau bilcahd in la oofiyo ballamaha aynu qaadayno aynu alle ka qaadnay aynu ka qaadnay ummadda waa inaynu oofinaa si aynu u qaadano shahaadadan qiimiga badan wallahi ka qiimiga badan inta adduunka saaran oo dhan waa 7 dhul iyo 7 same ogow adduunkana ka qiimi badan wallahi aad bay uga qiimi badan tahay maxaa yeelay shahaadadan alwafaau bilcahdi ma aha shahaado uu insaan bixinayo waa shahaade alle uu ka soo bixinayo subxaanah min fawqi 7 samaawaat 7 sama ka kor uu ka soo bixinayo weeyaan madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam waxay inugu gubaabinaysaa idaylkeen in aynu dhaqan gelino dhaxalkan rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh dhaxalkan la ilaaway dhaxalkan runtii la halmaansan yahay in aynu dhaqan gelino kadibna aynu sii gudbino aynu u gudbino walaalaheen laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih iimaankiisu midkiina taam noqon maayo ilaa uu walaalkii kala jeclaado waxa nafsadiisa uu la jecel yahay sifooyinkan quruxda badan shahaadadan baasitaankan guushan waad doonaysaane la jeclaada walaalihiin yaysan idinku ekaanin idinka dhaxalkane waa in aad gudbisaan waad arkayseen caawa siday madrasadu u qaylinaysay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu